gabadha hadday 25 dhaafto gorgortan bay gelaysaa saaxadii suuqa way ka baxday ama ha qurux badnaato ama ganacsi ha sidato 18 maanta gabadhu soo gaadho 19 20 koobilo waa la isku leynayaa waa dheeman gabadhu sharafta way la dhalataa qiimaha way la dhalataa laakiin qiimaheegu markasta ay da u korodho qiimaheegu waxa gelaya hoos dhac baa gelay Rahmaanir Rahiim waa walaalkiin Daay Saalax oo maanta niga soo salaamay magaalada Boorame gaar ahaan TV Cishqi maalmahan waxa su'aal aad iyo aad lay weydiinayay oo igu soo noqonaysay dumar faro badan ayna weydiinayeen warniyo raaliya nagu dabaqiseen rago maxaad u baahantiin rago waxa ay u baahan yihiin dumarkeena dib baa haysata waxaan u baahanay ma garanayaan waxa iyagu nooga baahanayeen ma garanayaan wallahi waa caqabada weyn ee haysta walaal maxaad u baahantahay ku tiraado banin maxaad uga baahantahay ku sheegi mayso banin adii muxuu kaaga baahanyahay ku tiraado ku sheegi mayso meel rasakum bay ku wareeg rag waxay u baahan yihiin shan bay rag niga baahan yihiin shanna naga ilaaliyeen leeyihiin bar 10 ka qoro maanta waxaan siinayaa course free ah shan iga qora shanta ay rag ay u baahan yihiin ay dumarku uga baahan yihiin gabadha raaliyada looga baahan yahay shanna waxaan uga baahanay gabadhu inay naga ilaaliso shanta 10 ka qorta koo waxa weeyaan gabadh hadal wacan hadalkiigu gabadha wacnaado gabadh maqal wacan gabadha raaliyada raadinayno waa gabadh dhegteeda ku goysay dhegteeda intii ku goysay waa inay ku siisaa dhegteeda hoo waa inay ku tiraado haddii gabadh dhegteeda ku jarin guri u dhaqmaya ma jiro laba ma iga haysan anu dheg ma rabo go'aan waxaan ku leeyahay laakiin dhegtaada si hadalkooda ha wacnaado maqalkeegu ha wacnaado oo gabadh ku maqlaysa ha noqoto gabadh gogol wacan ha laga helo gogoshna waa muhiim cunto wacan ha laga helo bariis iyo baastad ku dabaqaysa raggi nafta dadkii caruurihii tawaad aad haysan bariis baasto xitaa cuntada borotiin kale cuntada nafaqada leh dadkeen dhalinyarteena gastric ba ku wada dhacay dadku waa iska wada xanuunsanayaan gabdhihiina way xanuunsanayaan raggiina way xanuunsanayaan waxaas waa cunto xumada cuntadaaduna ha wacnaato gogoshaaduna ha wacnaato nadaafadaaduna ha wacnaato meel nadaafad la lagu soo hirtaa shanta hadii gabadha laga helo wax kale oo looga baahan yahay ma jirto shanta u baan leenahay bal nasiya raggu waxay la qeylinayaan ay guriyooga soo cararayaan ay raggi dhalinyartii u gursan lahayn waa shanta gabadha shanta laga helo waa raaliye weeyaan waa waxa ninka iyo ka dhaxeeya iyo iyada shanna waanu diidanahay gabadh diinta u daran waxa diinteena u daran ama waxa diintaada dhaawacay hay naga ilaaliso gabadhay naga ilaali waxa diinteena dhaawacaya waxa naga ilaalisaa waxa dhaqankeena dhaawacaya wax dhaqankeena Soomaaliyeed u daran idna naga ilaali waxa kale oo idna naga ilaalisaa oo aan u baahanahay inaad ka digtoonaato oo ka foojignaato waxa jeebka ninka u daran dhaqaalaha ninka wax u daran midna naftaada waxa u daran anagu dumarka waxaan dhahdaa naftooda anaga uga lex jecel badan naftaada waxa gabadhay u darana naga ilaali dadka qaar baa ilaahay waxa ku dhaw war gabadha nafteeda anaga uga lex jecel badan wajigeega anaga uga lex jecel badan caloosheeda wixii galiyaan uga lex jecel badan ilmaha ay dhashay baan uga lex jecel badanay bal ina nafteeda leedahay walaal waxaas kuma fiicnaha marsan ka war cuntadaha cunina iska ilaali ka war waa waxaas dhaqankaagu ma wanaagsan iska joog iyadii baanu ilaalinaynaa wixii nafteeda u roon gabadhay wixii naftaada u daran iga ilaali waayo gabadh nafteeda u daran ma wada noolaan karnaa nafteedu u darantay mana nafi gelin naftaada gabadha nafteeda u roon ee jirkeega u roon ee caafimaadkeega u roon ee wax yeeleynay dhan ka fog iyana waa muhiim midna haddii ilaahay nasiiyo oo ragga ilaahay ku arsaaqo oo meesha ubad yimaadaana waxa ubadkeena u daran inaga ilaali waxa hadii ubad yimaadaan markii ilaahay ubad ku arsaaqay ubadkeena waxaasa u daran hadduu ku raado walaal maqal
ubadkiina waxaasaa u daran iyo kadaa ubadku waxaas uma rooni kadaa dhaqaalaha ubadku uma rooni kadaa caafimaadka waxaad siinaysa uma rooni kadaa iskuulka aad geynayso ubadku uma rooni kadaa ilmaha saacad u wado uma rooni kadaa hadduu ilmahana waxa weeyaan wixii u roon samee laakiin wixii ilmaha u daranna inna ka ilaali halkaasaan kaga baxaya maalmahan oo kale waxa soo baxaya dumar leh da'du waa lambar da'du walaalooy ragu ma rabaan 25 jir gabadha